kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada YouTube-keena Himilada Nolosha. Haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay channelka, fadlan subscribe saar si aad ula socoto mowduucyo kale oo xiiso badan. waxaynu sida caadiga ah aflaamta ku daawanaa askarta militariga ah ee dhulka kaymaha ah dagaalka ku galaya inay wajiga marsadaan shay u eeg caleenta dhirta ay ku dhex jiraan. waxay sidaas u sameeyaan in aanu cadawga ka soo horjeeda kala garan iyaga iyo dhirta. sidaas si la mid ah ayaa xayawaanka yar ee jirjiroolaha loo yaqaanaa midabkiisa u beddelaa si aanay cadawga hareerihiisa jooga u ugaarsan, sababta oo ah sida xayawaanka diinka ayuu u gaabiyaa masaafo dheerna ma socdo inta badan. haddaba taasi waa aragtida ay badi dadku ka aaminsan yihiin xayawaankan, balse sayniska ayaa qaba fikrad ka duwan. waxaa jira unugyo ku jira maqaarka xayawaanka iyo aadamaha oo la yiraahdo unugyada midab sameeyayaasha, luqadda qalaadna loo yaqaano pigment cells. unugyadani waa kuwa go'aamiya sida uu u ekaanayo midabka oogada sare ee maqaarkeenu. markaan intaas ka nimaadno, jirjiroolaha unugyada u qaabilsan midab samaynta maqaarka waxaa la yiraahdaa iridophores, kuwaas oo u shaqeeya sida muraayadda oo kale. hadba meesha uu marayo ama uu dul taagan yahayna uu midabkeeda yeelanayo, sababta oo ah muraayaddu hadba wixii ka soo horjeeda ayaa ay muujisaa. marka aan ku leeyahay maqaarkiisa ayaa sida muraayadda u shaqeeya, macnaheedu waxa weeye haddii aad muraayadda hor istaagto adigu waxaa ka soo muuqanaya wejigaaga, sidaas oo kale ayuu maqaarkiisana uga soo muuqdaa hadba wixii markaa hor yaala ama uu ku dul taagan yahay. waxaa jira laba sababood oo waaweyn oo jirjirooluhu midabkiisa u beddelo. midka hore waa inuu ku wada xidhiidho ama uu luuqad ahaan u adeegsado sida aadamuhu isugu fahmo af u gaara, gaaraabidhaankuna isugu fahmo luuqadda iftiinka. sidaa si leeg ayaa uu jirjirooluhuna isugu fahmaa luuqadda midabka maqaarkiisa. midabada kala duwan ee uu ku samaynayo oogada maqaarkiisa ayaa muujiya hadba xaaladda uu ku jiro. tusaale ahaan, marka midabka jirjirooluhu isu beddelo casaan iftiimaya, waxa uu ku sugan yahay xaalad farxad saa'id ah ama cadho saa'id ah, halka marka uu isu beddelo midab madowgu ku badan yahayna uu ku jiro xaalad xanuun ah ama isku buuq ah. sababta labaad ee jirjirooluhu midabkiisa u beddelaa waa inuu ku ilaaliyo heerkulka jidhkiisa. jirjirooluhu marka uu qabow badan dareemo waxa uu midabkiisa u beddelaa madow si maqaarkiisu u nuugo kul badan, diirimaad badanna u dareemo, sababta oo ah midabka madowga ahi waxa uu nuugaa kulaylka, halka uu midabada kale ee ilaysnoqodka ah maqaarkiisa ku sameeyo isuna beddelo marka uu kulayl badan dareemo. maqaalkan waxaa qoray Aamin Timcad. haddaba daawada, haddii aad dhammaadka nala soo gaadhay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. mar labaadna waxaan ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe siiso.